hadalkii ka soo yiri wasiirka waxbarashada wasiir Goodax kuna aadanaa qaadista imtixaanka dugsiga sare ee lagu qaadayo Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka oo ku aadanaa in dib loo qaadi doono imtixaanka 27 bisha aan ku guda jirno waa sida uu ka dhawaajiyay wasiirka asagoo u saweeyay in saddexdii maalin imtixaanka la galayay uu suuqa yaalay imtixaanka wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaaga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go'aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado macquul maaha imtixaan saddex maalin imtixaanku socday 6 maadana waa la qaaday 6daba suuqa yiileen hal meelayna ka wada imaanahay kadib hadalkaasi xalayta ka soo yeeray wasiirka waxaa aad kaga xumaaday ardaydii galayay imtixaanka iyadoo maanta Muqdisho iyo Kismaayo dowlad goboleedka Hirshabelle iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolada dalka ay ka dhigeen banaanbaxyo ardaydii galayay imtixaanka iyo waalidiintooda iyadoo banaanbaxyadaasina ay sababeen dhimasho iyo dhaawac kadib markii askarta dowladda ay fureen rasaas ay ku kala ergayeen banaanbaxyaasha dhanka kale ardayda oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay siday u arkaan hadalka ka soo yeeray wasiirka محمد عبد الله محمد waxaan ka caawinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya wax marna barin dawladdu saas ay tahay dawladdu oo hoggaansanay wax warka inoo soo jeedinay waan ku soo yeelnay dawladda warkeeda waana aqbalnay kooxda barashadiisa asaga dayacay boqolkiiba boqol saa dayacay asaga wadada siyaabay anaka markaa daalaynay anaka markaa daalaynay oo madax nursaday asaga dawladda soo jiray exam anaka ma ku laabanan examka ma ku laabanayno yeesay khasaarin mara ku laabanayno halkan dawlad kama caaneyno mana ka aflagaadeeno laakiin waxa diidanana cadaalad darada iyo suuqmaasoo ka socdo Goodax bar imtixaan markuu qaado uu baxay wuxuu iska aaday Cumar Sacuudi anaga dawlad ma caaneyno dawlad taayada kale xaq aan ugu dhaal ma qabto anaga mana siin iskuulaad free ah wax ku barano anaga lacagteena war anaga imtixaan la wadooyinka inta xirato inta lagu ka soo bilaabay xaafadana atalax lu ku yimaado madaxdeena maanta saaka fileynay iisaan noqotay isma laha madaxdeena saaka fileynay iisaan noqotay isma laha 14 Oktoobar waxa loo baxshay soobe waxa lagu dhameeyay arday waay anagana maanta xabadaan lagu soo burinaya maxaa galabsanaa anaka maxaa sameeyay ardayanahay waxa u dadaalayna waa u bixi dalkaana balka edikaarkayga fiiri saa u jaraynaay fiiri ciila loo inay maanta aniga wax kale taalo inay malaam aniga wax kale taalo inay malaam dawladdu wax naga qabanin gabadha istalo aniga maanta waxa loo inay wax kale ma aniga imtixaankan waa nala kasala arrintan ka soo yeertay wasiirka ayaa aad u saameysay ardayda iyadoo saddexdii maalin ee la galay imtixaanka ardayda ay sameeyeen dadaal aad u fara badan maxamed daahir cabdullaahi dulmidiid media muqdisho.